hooyadii heer waxay gaadhay xawayaan xamsaw in ciyaarayo inay joojiso shaqadii wato TV aniga daraadii ay u soo fadhiisato ii ducayso قلت وعنا ونسأل إذا أنت بسحب الملك استنى قلا سعتان هل كانوا وأستان سبورتس كوني سو دوادا برنامج كنا قح بوسكاغا أو تطبات كنا كوسو مرتقانا عياريان سهل حسين ديرية وأنا هالقدي كوباد برنامج كوي كلا قيب قادني حدقة وحاو ديلي هشيس كل شراء قوحدة بانكا وقد شوريال كهير كوباد عاصمة هركيسا صاحب مركو قول سأستان كوسو دوينيا سكوبان سهل تاريخ هذا كوبان أحبرش هذا قوحي يرانتي أضو إسراعينيا halkee kubadda cagta ka soo bilowday horta awal waan salaamaya dhamaantiin waan idin mahadcelinayaa waayaa kubadda cagta waxaan ka soo bilaabay kulli qof kasta heer buu ka soo bilaabay hoose hayaanka kubadda cagta waxaan ka soo bilaabay Sharbaad haddaan tabaxo kulli koox badan baan baadka u soo ciyaaray intii aan ciyaariyay kubadda laakiin waxaan ka hooseeyay kulli laba kooxood inta baadka ciyaaray koox weeyaan yaraantayda aan u ciyaariyo deex la jiray iyo kooxdii aan muddo ugu badneed aan baadka ka soo baxay in badan joogay oo raayaduna anshax stars waxaan uga soo gudbay kooxda heerka labaad oo waxa weeyaan markaan ku ciyaarinay magaca kooxda wasaaradda waxbarashada markii dambana aan u wareegnay kooxda banka Somaliland waxay qaatay kooxda banka oo qaabishay sidii baan ugu kubadda cagta hayaankeydu ila sii socdaa meel fiican aan jecel insha Allah inaan ka gaaro hadii Allah wada ogolaado way aad baan horta kaaga mahadcelinayaa waraysigan aad siinayso iyo saad soo ajiibtay adna waan ugu faraxsanahay maanta waqtigoina wada kulmiyo waxaad ka ciyaartaa khadka dhexe maxaa ku dooratay khadka dhexe in kulli su'aal muhiim ah khadka dhexe horta waa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa saddex boos waxaan isleeyahay waa boos ugu muhiimsan waana kulli waa calooshii waana meesha ugu hawsha badan leh marka hore aan garab weerar ka ciyaari jiray anigoo yaraanta weer baan ahaa laakiin markii dambe waxa igu qalqaliyay dhex ka ciyaaro macallinkay macallin Sayid Cali Muuse isla dhexa ayaa guul waxaad ku fiicantay inaad dhexda ka ciyaarto waa macallinkay igu qalqaliyay barta ka ciyaaro way sidoo u aragtaa markaa inaad khadka dhexe ka ciyaarto aragtaan khadka dhexe niyo waa ma hawl badan laakiin markaan eego khadka dhexe niyo way hana hawl badan وران شعارته مال وباص وفي عن كل سليمان تمشاس إن شاء الله كسوها تلا وترى وي شغل كستور لك أنا يا عقبات بس كلام أنتي أخذت كده حكي عيالي سي مع الديوان جلسة وران كرتا أخذت كده عقبات النوع يولي أما لكبر أما أتشخص يعني هذا كبرت يعني عقباتها كلا كل ما يوحى كم ده كتباعي كريه لور بانك تفهم كريه marka qaar buu garan kula soo galay ninka khibrad badan oo dhex ka ciyaara adigoo kulli aduna isku tuumaysan inaad jahayso marka qaar baa kasan dhex on dhaqaaqayn boo ku bidi kaaga fiican oo de wax weeyaan taagni ku ciyaaraya kaagana fiicna booski kaagana khibrad badan marka waxyaabaha ugu badan garoonka kol ma kamid ah caqabada ugu weyn inaan arko marka qaar nin aan isba dhibayno inta adigu awoodda isticmaalayso isagu maskaxda isticmaalaya taas ay ugu dhib badan masli waa kartay iyo kugu dhiirigelina khadka dhex ka ciyaarto waxay ugu dhiirigeliyeen Allah karaameeye macallin Sayid Cali Muuse Sayid Fiera markaas ay ugu dhiirigeliyeen ka ciyaar dhex waa inagu maanta ka faa'iideysanayna waraysigan dabcan dalka dibadiisa jooga waxbarasho aaday maxaa fariin u diraysa hadduu la calaayna daawado macallinkayga kulli waa waalidkaygii hooyadii aabbahay booskoodii ugu jira waxaan urtaan salaamaya awalan marka labaadna waxaan u rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad baan u rajaynayaa hadda Allah wada ogolaado way markaad leedahay big game-ka oo kala horyaalka heerka koowaad caasimadda Hargeysa waa kulamo aad u adag kooxna koox kama heer hooseyso sidee isugu diyaarisaa adiga mas'uuliyadda intee leeg baad saartaa position-kaaga taas waa su'aal muhiim ah horta waxay ku xirantay qofka shakhsiyaantiisa ku xirantay anaa waxaan isku dayaa 100% alaamtada teamku qaadanayo inaan alaamta ka duwan oo shakhsiyan aan qaato aan isku diyaariyo kulliba kulmada aad ka waaweyn inta wax weyn kooxaha weyn la ciyaarno inaan ka soo dhex muuqdo kooxdeedana aan meel fiican gaarsiiyo aan isku dayo intii awoodda karaankayga
way guulaha aad adigu shakhsi ahaan aad gaadhay sida banka kooxdaada erka labaad inaad kula soo qaatay koobkii u dambeeyay guusha xusid doontaa waran kartaa guushaas ay ugu muhiimsanayd waayahay kubadda cagta inta kubadda cagta ciyaarayay guushii ugu muhiimsanayd laba guulood oo kala horta mid bacaadka ma ilaabi karo aan ka soo baxayo kooxdii bacaadka aan shax wax weeyaan kulan aan garan wax weeyaan maxamed xal aan ka soo baxayan ku ciyaarinay aan kooxda safactuna warsan ka qaadnay taabta ma ilaabo guusha labaad iyaduna aan ilaabi karin wax weeyaan kooxda bank aniga ciyaaraya guulaan la gaadho ka badan kooxda tamarta taasaan oran kara waa guushii shakhsiyan si leeyahay ko ugu weyn ama ugu muhiimsan way xidig khadka dhexe ka ciyaara baa tahay dabcan qof walba oo khadka dhexe ka ciyaara ama position ka ciyaarana qof role model yahay adiga role model ku dhaxa badan oo jaan caasimad jooga aad u fiican oo jaalay kubadooda mana tirin karo laakiin nin walba role model buu leeyahay أنا waxaan aad ugu dayay Cabdikariim Maxamed Ciise guushi baan aad ugu dayin jiray oo wallahi waliba caqabad aan u mari jiray tan xaafadda ka imaado xaafadda qoox dheer aan iman jiray dhalinta iyo waxaan garmada xawaadna marka wada Cabdikariim barta ku ciyaaray inaan soo daawado si aan kubadiisa ugu korsado akhlaaqdiisa kubadiisa boqolkiiba boqol halkan waan ka salaamaya way dabcan san xogta ku hayo akademidiisana waad ka soo baxday inta ogaalkayga ah ma soo hubaynay runta ay been tahay ما حسوستا مالنا سوريستون هذا اللي نحمر أما كلمة هو اللي يريد أنا عبدكريم ها يعني أرتاح هدمي سوين شوقي كل واحد لا صرف بلاصتح بلاد وان كشري عقبة غير حياة وغير فقاتي وحوين لبا دقمو كلا دوما وحوين كلا شوقني كلمة دي يقول أنا كقرأ عبدكريم حياة ولقى الله هني يجبن عقبة ولا كورت معدنا سكوتي إيه ستة كحلسو taasaan soo kara wax weyn hadalkii ugu wanaagsan Cabdikariim ku dhiirigelin barnaamijkeenu maadaama uu iska kooban yahay labadii su'aalood oo dambe ayaa rabaa inaan ku weydiiyo xaafadda hooyo ama aabe iyo horta ku dhiirigeliyay kubadda xamsa wallahi waa su'aal aad muhiim ah kubadda cagta Allah u naxariisto oo taabay u dhintay kubadda muu jecleen faafiriidka sameeyeen laakiin hooyadii heer waxay gaadhay maxaa xamsa ciyaarayo inay joojiso shaqadii wato TV aniga daraadii ay u soo fadhiisato ii ducayso maalinka guuldareystay ay ogtahay maan guriga soo galan laga badiyay si ogtayba markaan guuleysto waxa weeyaan aniga daraadii faraxdo qosasho ila waxa weeyaan ila dareento guushaan soo gaaray halkan aan ka salaamayay hooyo ilaahay jannadiisa waxaan kugu ducaynaya ugu sarreeyaan kugu ducaynaya jannada firdaws ilaala way fariinta u dambeeyaan doonayay inaan barnaamijkeena ku soo gabagabeeyo maadaama uu kooban yahay maxaa fariin u reebaysaa qof adiga ku taageera asoo maasan tahay kulli way jiraan sida kulli baan hadaan ciyaartooy taageero way jiraan kulli aniga aan rag taageero kulli ama ciyaartooy ahaadaan waxaan kula talinayaa kow in cibaadada Ilaahay ku xinaadaan xarig Ilaahay qof kastaaba isku dayo inuu ku dadaalo waalidkan la adeeco digniinta ugu weyn ay tahay in bilowda iska ilaalino oo qof walba isku dayo inuu fiiska saxdo oo dadaalo inta karankiisa awoodiisa insha Allah taasan gudbin lahaa way dawdarkaas waxa uu ahaa Sahal Xuseen Diiriyo oo kala qayb qaadanaya barnaamijkeena qeex booskaaga oo halqadii koowaad aan isaga ku soo cusumay dabcan waxaan filayaa wareysigiisa qiimaha leh uu siiyay shirkadda Astaan Cable Sports wax badan laga dheehan doono aad baan ugu mahad celinayaa soo wareysiga uga qayb qaatay anigoo xamsada baaratan iyo mar kale intaan saaxiib yahay hawada ku kulmi doonaa maca salaam aad baan mahadsantahay